kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona hadda janaalka BARCA 252 ku cusub tahay subscribe saare si ku soo gaaraan muuqaalada soo socda muuqaalkan share dhaha Mahadsanidiin soo dhawaada saaxiibayaal haddii aan ku bilowno muuqaalkeena caawa wararka suuqa ayaan ku eegi doonaa Leo Messi ayaa go'aansaday inuu sii joogi doono kooxda kubadda cagta Barcelona hal sano ayuu sii joogi doonaa kooxda kubadda cagta Barcelona sanadka dambe ayuu ka tagi doonaa marka horyaalka La Liga iyo tartamada iyo ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Barcelona aabaha Leo Messi Jorge Messi ayaa sheegay muddo Deportivo in wiilkiisa Leo Messi uu sii joogi doono kooxda kubadda cagta Barcelona laacibka xulka Uruguay iyo kooxda kubadda cagta Barcelona Luis Suarez ayaa qadka taleefanka kala hadlay daafaca kooxda Juventus Giorgio Chiellini asagoo sheegay inuu ku soo doono kooxda kubadda cagta Juventus Luis Suarez ayaa loo sheegay inuu ka tagi karo kooxda kubadda cagta Barcelona xilli ciyaareedkan tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona Ronald Koeman ayaa Luis Suarez u sheegay inuu kooxaha kale iska raadsado ama kooxo kale oo ku biiro weli waxaa la socotaan muuqaalka aan kaga hadlayn wararka suuqa kala iibsiga kooxda kubadda cagta Barcelona ciyaar xalay ay wada ciyaareen xulalka Spain iyo Jarmalka ciyaartaas wuxuu ku soo dhamaatay gool laacibka kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka dalka Spain Ansu Fati ayaa iskoor ka sameeyay ciyaartaas xalay ay wada ciyaareen xulalka Spain iyo Jarmalka Ansu Fati asoo jiro 17 sano ayuu u saftay xulka dalka Spain waa xidigii uu da'yaray ee ka mid noqdo ama u safto asoo da'yar jiro 17 sano 327 maalmood laacibka xulka Brazil kooxda kubadda cagta Barcelona Philippe Coutinho ayaa dib ugu soo laabtay kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuu ku ciyaartaa garoonka Camp Nou Stadium Philippe Coutinho kooxda kubadda cagta Bayern Munich hal sano ayuu ku soo qaatay 3 koob ayuu kula guuleystay koobkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa tartanka UEFA Champions League 11 gool ayuu u dhaliyay 9 gool uu caabiyay 32 kulan ayuu u saftay intii uu joogay kooxda kubadda cagta Bayern Munich Philippe Coutinho ayaa hadda dib ugu soo laabtay kooxda kubadda cagta Barcelona tababaraha cusub Koeman ayaa u sheegay Coutinho inuu ka mid yahay ciyaartooyda uu ku duuli doono xilli ciyaareedka cusub 2020 iyo 2021 ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta Bayern Munich Thiago Alcantara kaas ay raadinaysay kooxda kubadda cagta Liverpool Barcelona ayaa hadda loolan ugu jirto inay la soo wareegto laacibkoodii hore kaasoo 2013 kaga biiray kooxda kubadda cagta Bayern Munich muuqaalka caawa waxaa idin soo jeedinayay anigoo Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo aad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan sheergalay la wadaag taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo